Bismillah, weli waxaynu ku guda jirnaa barashada maadada physics-ka fasalka 12aad. Maanta waa ciwaankii noogu dambeeyay ee chapter-ka koowaad ee maadada physics-ka. Waxaan inoo qoran symbol pendulum. Walhade. Waa maxay walhade? Symbol pendulum is a mass on the end of a string which oscillates in harmonic motion. Walhaduhu waa shay culays leh kaasoo ku xiran xarag kuna walhanayo socodka loo yaqaan symbol harmonic motion. Halkan waxay noogu qoran formulas. Sidaa darteed, period of symbol pendulum waxa uu leeyahay 2 pi oo lagu dhuftay square root L divided by G. Sidoo kale, frequency of symbol pendulum asana waxa uu leeyahay 1/2 pi oo lagu dhuftay square root G divided by L. T waxay u taagan tahay period. L waxay u taagan tahay length of string. Sidoo kale G waxay u taagan tahay gravity. Example 11aad ee symbol pendulum waxa inoo qoran find the period of symbol pendulum with a length of 4000 cm. Soo hel kalka uu leeyahay walhade haddii dhererka xarig ku xiran shaygaas culays kale uu leeyahay 4000 oo centimeter. Solution. Given waxaan haysanaa oo inala siiyay lamarko waxa uu horeeyo L oo u taagan length dhererka waxa inala siiyay 4000 oo centimeter. Sidoo kale waxaan haysanaa gravity oo qiimaheedu uu leeyahay 10 centimeter ama waxa u qaadan kartaa 9.8 ay u qaadan kartaa marka laga hadlayo gravity-ga. Si la mid ah waxayna weydiin waxay tahay waa period waxaa lagu helaa period waxaa lagu helaa 2 pi oo lagu dhuftay square root L divided by G. Haddii aan ku bedelano T waxay la mid tahay period waxay la mid tahay 2 pi oo lagu dhuftay length waxaan haysanaa 4000 oo centimeter markii mitir loo bedelno waxay noqotay 40. Booska L waxaan ku bedelnay 40 mitir oo loo qaybiyay booska G qiimaheedu waxa uu taagan yahay 10 mitir per second. 40 loo qaybiyo 10 waxay noo soo baxayo 4 haddii aan square root ka saarno waxa soo baxaya 2 times 2 pi waxa soo baxaya 4 pi second. Halkaas waxaa ku dhamaaday su'aashii 11aad ee ka hadlaysay symbol pendulum. Example 12aadna waxa inoo qoran ee ugu dambeeyo chapter-ka koowaad ee maadada physics-ka. If a violin body takes a 5 seconds to reach the ground, find its length above the ground. Haddii shay soo dhacayo ay ku qaadato 5 ilbiriqsi inuu soo gaaro dhulka. Soo hel meeshaas uu ka soo dhacay dhererkeeda inta la eg tahay. Solution. Solution-ku waxa uu noqonayaa length formula lagu helo waa period square oo lagu dhuftay G oo loo qaybiyay 4 lagu dhuftay 5 square. Iyagu waxay la mid tahay. Haddii aan formula ku furno waxa uu noqonayaa period waxaan haystaa inay qiimaheedu la mid yahay 5 seconds. 5 seconds 5 haddii la square waxa ay soo baxay waxay tahay 25 oo lagu dhuftay G qiimaheedu waxa uu taagan yahay gravitationka 9.8.
oo loo qaybiyay 4 oo lagu dhuftay pi qiimaheeduna waa 3.14 square maadaama square ay saaran tahay equal waxay la mid tahay haddii labaad tiradan kor ay saaran isku dhufto oo loo qaybiyay tiradan hoosane length waxa uu leeyahay 6.2 meter 6.2 meter haddaba shaygaasi soo dhacay joogku ka soo dhacay waxay leedahay 6.2 meter